kaale aan kula wadaagay qaabka ugu fudud aad isku bari kartid luqadda Englishka ama luqad walba aad rabtid. Waxaan kula wadaagi doonaa jadwal haddii aad joogtaysid maalin kasta muddo 6 bilood ah aad isku bari kartid luqad walba aad rabtid. Haddaba jadwalku waxa uu dhacayaa sida tan. Waxaa u baahan tahay maalin kasta 2 saacadood inaad gelisid luqadda aad baranaysid. Ka hor intaadan 2 saac way badan tahay ogow inaad 2 saac ka badan aad isticmaashid social media oo waxba aysan ka soo gelin. haddaba 2 saac waxa u kala qaybinaysaa sidan soo socoto 30 daqiiqo waxaa sameynaysaa dhageysi ah ama listening waxaad dhageysanaysaa podcast haddii aad dhageysiga nacabtaan waxaad daawanaysaa filin 30 daqiiqo waxaa sameynaysaa practice ama waa ku hadlaysaa luqadda 10 daqiiqo waxaa sameynaysaa akhris waxaan kugula talinaa inaad ka bilowdid akhriska sheeko caruureedka ama article oo fudud inaad akhrisid 35 daqiiqo waxaad daawanaysaa YouTube video waxaa jira koorsooyin badan oo free ah YouTube ku jiro hal course ka dooro oo guideline ku noqoto oo adiga ku hagto ugu dambeyn waxaa sameynaysaa 10 daqiiqo oo aad baranaysid 5 eray oo cusub haddaba erayada xifdis ee ka tag ma ahan erayga waa inaad xifdisaa sidoo kale aad isticmaashaa jumlad u samee kuna soo dar practice-ka aad sameyn doontid maalinta ku xigto haddii aad arrintan xiisaynaysa iigu reeb commentiga videogan kan xig waxaa kula wadaagi doonaa resourceska iyo meelaha aad ka heli kartid podcastyada aad dhegeysanaysid iyo weliba qaabka aad practice u sameyn kartid application aad isticmaalaysid adigoo la hadlaya dad ajaanib ah that's it for today see you in my next video bye